AI abbreviation can do artificial intelligence yahay labada af had iyo jeer Englishka iyo Soomaaligu habka siiqada ay isu daba joogo magaca iyo tilmaamuhu waa wax kala duwan waxa horeeya midna magaca horeeya midna tilmaanta meelaha lugooyinka kuwaas ahi oo tilmaanta horeysiiya ay ka guraacan yihiin maxaaba la ii oran oo loo tilmaami gabadh dheer baan iri dheer gabadh maxaa dheer ii magacow horta waxa la tilmaamayo marka waa inay tilmaantu dambaysaa oo marka la ii magacaabo you should name what you are describing exactly anyhow marka waxaynu u kala horeysiinaynaa innaga ma aha artificial kuma horeeyo ereyga intelligence Kevin waxyaabaha ereyada maskaxda la xidhiidha words related to mental af Soomaaliga waa badan yihiin waxayna leeyihiin dhadhanno kala duwan like any language marka la isku tarjumayo oo dhadhanka the taste of the word when we follow exactly waxaanu haysanaa maskax meesha iyadu ma imanayso maskaxdu waa waxa physicalka ah ereyada garaad iyo kasmo iyo miyir iyo maan iyo dhimir iyo kuwa badan oo la macno ah ayaa dhammaantood waxay wada ag marayaan ereygan intelligence runtii artificial waa laynoo xalliyey yacni mar hore bay dhaqan gashay kelmad af Soomaaliya oo technology hore related la ah oo nasiib wanaageen xuskeeda qirayno halkan iyo London inuu waa ka bilaabmay broadcasterskii joogay BBC London Somali section ayaa 50skii waxa soo maray erey technology waaga waxa u yimi satellite the word satellite bay dooneen wuxuu dhulku ku wareegayaa hadduu meere ku wareegayo if it is going around a planet waxa weeye waa moon dayaxu waa mid artificial oo la sameeyey waxay yidhaahdeen dayaxa gacmeed isagaa gacana ma aha ee dayaxa gacan baa samaysay weeye halkay ka soo qaadeen marka waxaa ku xigtay like words kelmadaha hirgalay oo hore loogu isticmaalay artificial insemination baa lo'da lagu sameeya iyo xoolaha waxay yidhaahdeen rimay gacmeed marka gacmeed horey u meel martay way dhigantay garaad ereyadii aan imika sheegayay iyo kuwa badan labadaba anigu bilowgii projectkan waa isticmaalay markii hore anigaa u keenay kasmo haddana markaad u sii dhadhamiso garaad iyo kasmo waa ila wadaagi doontaan dadkiina xeel dheerayaasha af Soomaaliga iyo erey bixinteeda waa kasmo waxay ku fadhidaa waa kasay matalan waa kasay waxaa ma kastay marka la kasman u leeyahayo marka small understanding garaad waa awood garasho intelligence markaynu u sheegaynona
marka halkaasay ila xigtaa aniga awoodda faham maaha waa kasay iyo understand wax ka shisheeya oo garaad la yiri ayaa ah waxaa qofka reerka beel u taliya oo hogaamiya garaad dhawaqan ereyga shaqalka culus iyo kan fudud unbaa la kala duway qofkaasu waa garaadkii cidda